السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن صاحب يال وحنا مالتا موقال كلا كهل دوله هدو الله ودل رالك لقدو تدباتك حرية يسدو كلا مهمة الصومالي دو بركايو لدهي أم وحي وقد قلتهي بلشد الصوماليات. dabcan toddobaadka xorriyadda waxay kasoo bilaabataa 26 juul oo ah marka gumeystihii ingiriisiga markaa laga racdeeyey gobolada waqooyi ee dalka ilaa markaa laga soo gaaraya 1 luulyo oo ku beegan markii gumeystihii talyaaniga markaa laga eriyey gobolada koonfureed ee dalka iyo sidoo kale midowgii labada gobol waa waqooyi iyo koonfur. dabcan waxaa muuqaalkan igala qayb galaya maxamed xuseen maxamed qaboobe oo dabcan asagu aaminsan in toddobaadkan aan loogu yeerin toddobaadka xorriyadda. dabcan erebixinta kale ee loogu yeeri doona siga ayaan dabcan u dayn doonaa. maxamed bal soo dhow marka hore. dhawahay waa mahadsantahay Zakariye, aada kaga mahad celinaya casuumaadda ay ii sameysay maanta oo aan fikirkayga aan kusoo gudbin doono. toddobaadkan xorriyadda waaye 26 juun iyo ilaa 1 luulyo marka la gaaro oo ku asaysan markii ay midoobeen gobolada koonfur iyo waqooyi sidoo kalena gobolada koonfureed ay xorriyadda qaateen. toddobaadkan dadka oo dhan waxaad moodaa in wadamooyin yihiin marka loo eego sanadka intiisa kale. maxaa ugu canbaasnada waa mahadsantahay soomaalida maanta oo mahad celinaya Zakariye, aad waa mahadsantahay. isbuucan horta ani mu aqaan isbuuca xorriyadda sababtoo ah waxaan ku sababeeyaa annaga addooman weligeen ma noqon wadankeena way imaadeen cadigii laakiin soomaalida ismaynadeedii way dagaalamayeen way halgamayeen. taa bedelkeeda isbuuc xorriyad ina dhahay waxay isbuuca guushii isbuuca halgamayaasha in la yiraahdo wasiiqada laga bedelo guushi markii la yiraahdo guushi waa macno badan tahay. maxaa marka waxaan kaliya waxaan qaadan karnaa guusha cadow aan ugu soo duulay oo gumeysta gaalo ah waxay rabeen wadanka muslimka inay qabsadaan dadka wadamasiixiyiin ka dhigaan diintooda ay ku faafiyeen. dadkii awoowayaasheen iyo dadkii halgamayaasha waagaas ka dhiibay hal mar had isha Soomaali gaala oo tuulo degan oo leeyahay Soomaalida waa Soomaali Kristan ma jirto. sidaa darteed taas waxay ku muujinaysaa Soomaali weligeed adoon noqon. marka xorriyad dhaw waxay u keeneen dad la gumeysto addooman ahaan ama weligeed addoon. wadamada kale Afrika dad badan oo diintaas oo muslimiin ah diinta markay gumeysto u dheeraan weeyaan ayna dhicin Soomaali tuulo kamid oo Kristan ama qado. marka sidaa waxay ku cadeeyeen in Soomaali weligeed ay gumeysan laakiin way yimaadeen nimankii gaalada ahaa oo Ingiriiska waxay isku jiray Talyaani marka annaga waa iska difaacna waa iska caawin hal habeen nabadayna ku sheexan meelaha ay joogeen. marka sidaa darteed waxay ku muujinaysaa Soomaali weligeed inaan la gumeysan. marka ereyga xorriyadda aan bedelna aan u bixin isbuucii guusha isbuucii halgamayaasheenii Soomaaliyeed. waxaa la rabnaa marka toddobaadkan la joogo in maaragtay lacago fara badan ama kharashaad fara badan oo ku baxo dabaaldega. kharashaadkaas iyagoo muxuu ka dhigayaa waa mahadsantahay. halka bedelkeedii dadka taariikhdoodii la bari lahaa halgamayaashoodii sabaradoodii amara maradan calanka Soomaaliya oo aan la isku waafaqsanayn oo mid uu karar gooni oo wato ee fagaara dawladda waxay ku bixisaa dhaqaale badan ku bixisaa. taa bedelkeed waxay guddiga loo xilsaaray in xafladda halgamayaashii ama ana u aqaan halgamayaashii isbuucii guusha in la sameeyo dadka la baro taariikhdii Soomaalidii hore halgantay sabaradoodii historygoodii meelihii gaaladii lagu laayo oo dadka Soomaalida jirka cusub la baro. taa bedelkeed maanta miiko iyo calamo in la isku sawiraa waqtiga dadka loogu dhumina iyo xaflada dhaqaale ku dhacaysa. maanta dadka fagaaraha daljirka ama dadka meelaha jooga lagu qasbay dukaankooda calamo inay shaqeeyaan. hal nin oo yaqaan jirka Soomaaliya hadda yar dhalinyarada halgamay kamid ah dadkii halgamay iyo dadkii uu wanaagsanaa hal mid oo qof yaqaan ma jiro taariikhdiisa. bal waa laga yaabaa magac inay xasuustaan laakiin magac markaa weydiin kan caan ku ah imise dagaal ka qayb galay halgankiisa oo ay soo bilaa qof taqaan ma jiro jirka hore way yaqaan laakiin maxay ka dhigan tahay ayaan dhihi karnaa 26 juun iyo 1 luulyo oo dabcan dadka Soomaaliyeed intooda badan ay u yaqaaneen toddobaadkii xorriyadda. waa mahadsantahay. labada maalin oo laba maalin waaweyn oo taariikhi ah sababtoo waxaa orday gumeystihii macnaha dadkii isku dayay inay dalka gumeystaan laakiin laga adkaan. waxay muujinaysaa tabardaradii dadka orday. Soomaalina waxay u tahay halgamayaashii baal dahab weyn wax macno weyn ay fadhiyo. سادتنا marka jiilkeena cusub jiilkii hore halgamayaasha way yaqaaneen waxa ay dad had jiilka awoowayaasha laakiin jiilka cusub awoowiis saddexaad ama awoowiis afraad noqon ma yaqaanaan dadka halgamayaasha taariikhdooda
meelihii waxay lagu xasuuqay gaaladii soo duushay marka macno weyn ay ka dhigan tahay marka loo eego dhanka soomaalida iyo halgamayaasha laakiin jeelkeena hadda maanta joogay jeelka ka yar wax macno uguma dhisan waxay kadib u yaqaaneen galdinka daasoon bulle lagu rido lagu dhafro macno kale uma yaqaanaan anaas waxaa ka bax shaqo xoogan ay samaysaa meelihii wax filayay in qashinkay kusoo aruurayso maanta laakiin haddii qofka jiilka yar ama la bari lahaa muwaadinimada dabta oo saxda oo maxamed waxaa leedahay meesha qarashka lagu bixinaa fankasti iyo dabaaldeg maxaa la yidhahdaa bal xitaa dhalinyarada loogu faa'iideeyo taariikhda hala baro hala yidhahda goobtan halgamahada joogi jiray goobtan galbees meesha ku baxa waaye sidaas macnaha hala yidhahdo hala dhigo si fiican sidoo kale haloo dhigo calaamadan bedelkeeda dadka lagu qasbaa dukaamanka in loo sameeyo halgamayaasha qaar sabaradooda leela kuwa qaarna in alkiisa qaato oo meelaha lagu dhajiyo toddobaadkan si dowladda u weyneyso waxaan aragnaa iyadoo maaragtay isheeg maamulkii degmada iyo kan gobolka ganacsatada ku qasbayeen maaragtay dukaamadii calamo lagu xiro si maaragtay isheeg magaalada markii la marayo calamadii ay ku muuqdaan inkastoo meelaha qaar lagu xiro camal marabaati kasamaysan dhowr xidigna bal taas maxaa ka dhigan tahay soo maasan tahay dukaamanka iyo meelaha ganacsiga waa aragnaa calamaan kala cayn oo aan kala duwan kala madabda mararka qaar marka taa macno ma lahan waxay macno ku yeelanyihin ani maanta hadaa arka wadada aan maro ama qof kale ajnabi hadduu yimaado soomaali ahayn meel walba macalin ka taaga si normal wax weyn waa laakiin maxamed markii qof ajnabi wadanka u yimaado laamiga soo maraya waanigi mara baatiga dhowr xidig ay ku soo orantahay maxay maaragtay muujinaysa sawir ahaan waxay muujinaysaa dad kala tagsan aan isku mowqif ahayn kala calamaan duwan marka taa bedelkeeda dowladda waa inay ku qasabtay ahayd muwaadiniinta soomaaliyeed in nin walba dukaankiisa la halgamaya hebel sabaradooda iyo taariikhdooda yar oo ka kooban meelaha la dhigo dukaamanka lagu dhajiyo iyago waaweyna boorar ah waa hagaag maxamed haddaba maxay tahay in la sameeyo si markaa arrintan loo wajaho waa mahadsan tahay waxay ahayd isbuucan oo kale ah horta marka koowaad waxay magac laga bedelo oo jiilka dhalinyarada cusub magacan hadda xorriyadda xiliyaha laga bedelo magac kale lagu bixiyo ee soomaalida isku eray bixin inuu sameeyo sidoo kale dadka jiilkeena lagu baraa halgamayaashii taariikhdoodii sabaradooda goobaha la iskugu yimaado meelaha dukaamanka suuqyada lagu dhejiyaa halgamayaashii sabaradooda halka taa bedelkeeda calamadan oo kala caynka si maxaa la yidhahdaa qofka sawirka arko uu yidhahdo kenya waaye wuxuu qabtay iyo wadanka waxaas u qabtay nooga sheekeeyo sababta jiilkan uu barana jiilkan waxay jiilka sabarka la jiilka fiidiga marka macna weyn oo leeyahay laakiin in meel la soo istaaga madaxda ka sheekaysan hebel asaas ah in hebel asaas ah oo marka ugu dambaysa calan iyo bulla la reeyo macna gooni kuma fadhiyo jiilka cusub ma dhageysanayo waxa laakiin wuxuu ku fahmay sabar iyo fiidiga meelaha waaweyn taalada dalida sabar waaweyn halgamayaasha lagu dejiyo dad badan taalada macna leedahay dalida faan halgamayaal badan aan aqoon ayaa loo dhisay sidoo kale sayidka sabaradiisa meelaha lagu dhigay meelaha qaar laakiin halgamayaal badan oo qarsanayo إن سيد الشيخ حسن برسنة سيد علمي قال علمي قال دل حيوان صبره من الجيو ناس كجيل كان حيوان إن بيرجعوا وإن لا يحكي عن كان يصبره لكن واحد ما شيء وعقل أي شيء واحد مكفاهم يعني وحقال السيف ومن قال أو اللي بده الطلياني تاريخ السيف إنك سو وقت يبرد كذا قال لي هو حرب لكن السيف ده واحد ممكن أنت حرية ده كل يعني حرية مو أغاني هذا العجيب أنت صومالي قال لنا سجون ليه أنا هليدو marka taariikh waa weyn hadda maanta kala isbuucyada marka in laga sheekeeyo oo jiilka la baro inta maaragtay sheeg maxaa bulshada la wado meesha la geeyo yiraahdo maxaa meeshan taariikhdaas ay leedahay meeshan halgama hebel joogi jiray meesha gabadhaas oo ku baxay waay meeshan sidaas ay leedahay saas ay fiican warbaahinta dowladda iyo waxyaabaha hadda lagu bixinaa intaa bedelkeeda loo isticmaalo jiilkan saas loo baro anagana la baro aniga qaarkood dad badan oo Soomaali ah oo waxaa jira aan aqoonin la baro halka bedelkeeda calan iyo meel oo fagaar la yimaado buller lagu casho lagu cuno oo aan wax aan macnaha ahayn oo dhaqaalaha in ku baxdaan ma faa'iido kala leh hada dowladda khayr ala wasaaradda waxbarashada waxay samaysay isjaacadaha dugsiga qofka markuu dugsi sare dhameeyo aan soo dheeraado ku jira sababta lagu daray Soomaali muwaadiniin in dadka taariikhda la baro ka bedelkeeda wasaaradda xaleero in qorshe kale la timaado warbaahinta Roma sida dadkii la baro halgan fiican ee dowladda walba qaybo kamid ah oo ku liidataa sababta qaar dadku xilin fahansiin waxa arkaysa maalaha marka la leeyahay xafladaha ay dhamaadaan meelaha qashina lagu tagaa
wadana jecel yahay calankiisa wata meelihiina wixii lagu sameeyay waxa arkay qashin wasaq qof caadi waxa arkay calankii wato dabaaldega xiiqa iska heesaya soo calan caadi biyo ku calan wadada ku xooray xanjadi ku xooray marka maxay tahay faa'iidada wala yahay bal waxa laga yahay wasaq qashin laga yahay bedelkeed wax faa'iido laga yahay dhibaato kale wala yahay oo dawladda hoose ku bixisa maalinta marka waxa say dhamaadaan inay qashinka qol u dirto nadaafada la soo hagaajiyo maxamed gobolada waqooyi ee dalka waxay naga qaateen 26 juun ama maaragtay isha gumeysiga iska eriyeen dabcan sidee markaa loo wajihi karaa waan dareemi kartaa gobolada waqooyi halka maanta ay taagan yihiin iyo dowladda federaalku sidee markaa loo heli karaa midnimo sidee markaa loo sii xoojin karaa وأحسنت ذكري وسؤال وسؤال مهم عن السعودية. سيد عادي قال أبناء الصومالية المدة قاسم. الصومالية ما يقول بيجوجان وإسرائيل تجان. صوت أنا الصومالي ومشي جوا هالجيش وكذي كلام. مواد الصومالية قف قولي أي قف قولي لكن واحد يسقون في كل السياسة بيعرفتها. إذا لم يساهم أنت سياسي الصومالية يذكر مسيرة الصومالية وقعان كذا. أي على غير وإني لي من عقلي نظيفة. أنت حال كل هير وقوي وحلا يضرب وقوي أنت جو اللي أنا واي حل الوين هاي ما كنت صار يحكوا عبد الوحي سهلين وحيا اسمع نافع وقعمل شيء دولة شيء في جو وودي وهذا إن سؤالي أي عبد صلان إلى هذا ما أنت حرية ما أنت حلوش الحرية أنا أقف عن عندي إلى هذا قال لي ما يكسوني إني أنا سؤالي أي جنسان كان مني بالإعلان ما حتى سؤالي يركوفنا ولازم يقول من سؤال لك لا قيدين يا الله إن جوني ويتاي هذا واحد سؤال معنا ربطه إسرائيل وحش بدي سؤال من إسرائيل ما كان حلو مثل دمع وكجرا لكن حلو الدنيا سؤالي ضد وأكيد يوم ما نقول بقول حلو سؤالي ضد ولا ضد هلا ضد حكتا مرنا عن كردوين حلو نصير درب بارلين عم ندرب وبسا لكن تام على عيش يقربوا الكوريا هنا ما كيس ترجع عمل يرمان لكن صورة تجد سؤالي ضد إيه هذا حيل مرنا عن الحمد لله بدعة كان هدي الكأنه وحاجة التولات كحرية طبعا أنا لأنه التولات كحرية واي محل الدمان دقلو الحفلة اللي لقبته بدعة كان كده محل اللي قلت هي محل هذا ilmaha marka gumeystiga eedhadeen oo dabcan ama talyaaniga joogo ama ingiriisi joogo markay arkaan anagoo xorriyaddii iyo maaragtay isheeg xilligan u dabandegayo tobaadka xorriyadda waaye waa la gumeysan jiray gumeysigii markaan ka baxna waaye sidaas maaragtay aan dhaheen markay arkaan sidee dareemaya والله horta waan siir maxamed weyn ah waxay dareemayaan iska in awoowayaasha geesiyaal ahaayeen oo dad wax damcay iyaga naftooda waxay u tahay dhiirigelin inay lagu soo dhiiradaan nabadda laakiin maanta bedelkeeda isticmaalin siiqa ka wanaagsan ma dhihin maalinta aan jibinay maalinta ka adkaanay oo jiilkeena cusub xitaa anaga waxay tusaysaa sabar xumo dad liit inaan nahay jiilkeena baraysa dhallinyaradeena waxa naga yeeyaa hadda caruurteyda iyo caruurtaada iyo caruurta Soomaaliyeed oo maanta daawanaysa hada ugu sheekeen saas ahayn saasana man maxaa dareemayna daciifnimo dareemayna marna saasana mayna taariikh waa laga been sheegay waxa kaliya ku tusayna gaalada inay been sheegeen waxay ilaa hadda maskaxiin inay u guuleystaan laakiin masuulta galis waxay dad waxa jooga Soomaaliya waxyaaba kaliya oo ku cadeynaya in Soomaaliya guuleysan waxa kaliya ku tusaale ku fil diinteena Soomaaliya Kristaan ما جست أصلاً يكون موقع مدير وكريستيان تقولين بكذا وعقوا عدينا مركوحين وطن نصيب جروة. وهنا يعني محمد محرنا السؤال مدة الكويتي اللي هو الصوماليين مركي كان يدور الحسين الحرية أو يسلحون سيدا يكتمون هالجمياشي كفاب قاطي هالجمياشي كفاب قاطي dhibaatadii ama dhibkii marka ay kala kulmeen dadka waddanka kusoo duulay marxaladii kala duulay ay soo mareen sidee fikir ahaan ay aaminayaan waa mahadsanta waqti dhalinyarada iyo jeerka haddiina aqoonin macnaha halgankii dhibka oo halganka maahan wax dhedheel maaha dhiigaa ku daatay waqtigaa ku baxay dad badan oo aan jecelnaha qaaliga ah ku dhintay ama ku shahiiday marka jiilka cusub ma dareemi karaan sababta macnaha ereyga ah in la halgamo in la iska dhiciyo ma fahmi karo marka waxay wax dhedheela waxa ku cadeynaysa dhedheel in ku tameeraha markay tagaan fagaaro waxay sameynayaan adag waxa arkaysa halganka iyo wax dhibka la soo marmo ka muuqato qiirada waxay dadku ku salaa iska faraxsan iska dhawr cadeynaya annaga marka halgamayaashii xilliga la xusaa ma ereyga xoriyad haddii laga bedelayo
sawir ka weyn ay muujinayaan dad xanaaqsan dad la muujiya gaaladii soo dushay weli in Soomaaliya halgamay dhiiggii dadkii biicaankoodii ka tegay in dad halyeeyay ah halgii ka tegay ka daran baan baqin in loo muujiyo sawir ah oo weli loo diyaarsanay qaabkii xamaasada ka muuqato si fiican bedelkii maaragtay inta isku yimaado la leekiyo la qoslo la damaashaado kala tegi lahaa in dadka la muujiyo in wadanka inaan lagu soo dhiiran mar labaad in isku dayin way isku dayeen way isku dayeen laakiin jiilka cusub inay u muujiyaan jiilka hore inay kasii xagirsan yihiin sababtoo ah anaga ay taliyaan marka la eego maxaa la yidhahdaa midnimada oo kale iyo qadiyadda in maaragtay jiilkan ay muujiyaan in maaragtay meeshii hore kasii xajirsan yihiin taas bedelkeeda laakiin waxaa keliya jiilka eedda ma laha waxaa eedda leh hogaamiyaashii barbaarayaasha dadkan dad hogaamiyaal ay leeyihiin dad waxay dad wax u sheego madaxay leeyihiin marka intaa waxaa u arkaa arrimo kale oo siyaasadeed sababtoo ah gumaysi weli uu nagu jiraa si dadban oo nagu afkaarta jiilkeena ku ciyaaraya jiilka afkaartiisa waxaa ku daliil kuwa dhaqaala lagu bixiya kuwii maalintaas aan la dagaalin maanta iyaga xafladihiina qaarkood hadda ma hubin laakiin dhaqaale ayay ku bixin jireen waagi marka bedelkeeda waxaa rabaa jiilkeena afkaartooda iyo fikirkooda in la dilo loo muujiyo dad daciif ah awoowayaashoodii aabbayaashooda madaxa lagu istaagi jiray aan xor ahayn suuqyada sida addoomada lagu iibsan jiray wax dhan been waay qof Soomaaliya oo addoon laga dhigtay ama hadda dalkiisa ama dibadda loo wada mooyna dhicin taariikh ahaan in looma hayo way jira Afrika wadamo qaar ka mid ah addoon ahaan laakiin nin Soomaaliya oo maraakiib la saaray addooma la geeyay jiray wadamada mayli jiray mana dhicin insha Allah haddana ma rajayna laakiin jiilkan waxay leedahay jiil tacbaan ah ama jiilka ka mid ah jiil biitaan sababtoo waxa kaliya waxaa duulaan maskaxeed duulaan fikri ayaa nagu soo qaaday gumaystii hore loo muuqday hore wata wax isku day kuwaan haddana duulaanka muhay ayaa ka xadgirsan kana dhib badan la dagaalkooda iyo marka waxaan rajaynaa insha Allah jiilka inay baraarugaan dad wax akhriyo dad wax bartaa macnaha laga leeyahay waxyaabaha hadda qaar la sameynayo inay ogaadaan waxaan ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkeeda gaarka ahaa oo aan kaga hadlaynay toddobaadka xorriyadda ama toddobaadkan marka guusha oo dabcan Soomaaliya waxaan eegi doonaa dhinacyo kala duwan maxamed markan haddii aan eegno dhalinyaro Soomaaliyeed iyo qaybaha bulshada toddobaadka waxaa la arkayaa iyagoo suuqyada dhooban calamo marka iibsanaya ayagoo maxaa la yidhahdaa dharka astaanta u ah calanka dowladda Soomaaliya iibsanaya gaar ahaan dumarka ayaa ugu badan baraha bulshada ayagoo maaragtay shay muuqaal iska soo duubaya soo lama dhigi karo marka loo eego sanadihii hore sanadkan dabcan si weyn ayaa toddobaadkan loo muujiyey وما صنت ذكري على نحرت إيه الميلة واحد معنا كمان اسمه بل أي معنا فيديوهات ميلها فيسبوك ميلها كلية على السوشيال ميديا قف معنا كهلا غف قف هالجماعة هالجماعة كشة كانت تاريخ اسمه هل هالجماعة لكن عالم مرة وعالم مرة عالم كانوا حالس من واجي هالجنكي دجال كم تقول أنا كده سؤال سمسة marka calanka waxmeena waxaan dibis waa maalin ciidan mudaan maalin guul ma arkin waxay la sameeyay waxay guusha dadku in laga sheekeeyo dadka halgamayaasha dadkii dhiigga wadanka u waray gaaladii meesha lagu xasuuqay halgamaysi meelo badan taariikhda muqdisho ku taal meelo badan ku taal waxyaaba kaliya maanta muhiimka degmada Boondheer oo maanta aan naga fogeyn waxaa ku xirnaa oo ku shahiiday nin halgamaya oo cajiiba taariikhda Soomaaliya cajiib kula Sheekh Xasan Barsan ويصير مركي سوق قبطين أصيّو مركي أصيّ حفظ كده مركي حد ما عنده ناس إنه ضدك لا شيء أنتوا كحنا وهذا خليني أقدم بمقال كهرجاء يعني مرينا داوديان محمد جمدي هدي بقران كل أما كلنا مرتي الصومالية مقال كالداوديس محيطها فريلة جود أدرنت أنا سنتك فرينت أدير لها وحوار المجال اللي بدو أسبوع حرية الحرية اللي بدو سي أي صوماليين من يردين عشب يقدر يمان ضد حرة وعن سنين كبدل كذا ضد كي أبو ياشو الطلياني والإنجليزي يعني إنه إدريين إنه أبو ياشو هالجماعة هيرو هاي وين إنه هاي قوة هاي مثلا مجال سريع بدو واقع وقت جاس وقت يبرين مجال موضوع صعب كلام ما أنا خرني جاهد اللجوء إنا أنا ولا نبغى نسجل أنا لا نسوي إس تاجمو أنا حفظين حفظة موجود حفظة دقيقة أنا وين أضمنه أهم جديد متى حوا عقلي عادي عقلي كلا وحمي لا ضد أنا أضمنه وحفظينه
waxaan Soomaalida waxaan ka codsanahay in magaca laga bedelo magacyo kale iyo waxyaabo kale ha loo bixiyo jiilka cusub saan iskugu malayn inay addooman ahaayeen awowiyaasha addooman iyagana addooman ay yihiin marka guud ahaan daawadayaal muuqaalkeeni koobna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tani inta muuqaalkan mid lamid aynu ku kulmi doono waa bahda soomaalida maanta oo isku duwanaduna sidaa iyo nabadgelyo.